halkan waa xulka wararka waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka gudaha iyo caalamka. ciidamada booliska waxay gacanta ku dhigeen askari 8 sano ka hor ku dilay laba haweenay Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho muxuu ka yiri go'aanka ay qaateen xildhibaanada golaha shacabka. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo laba arin oo xasaasi ah hor dhigtay xildhibaanada golaha shacabka maxay yihiin labadaas. senator Iftiin Baasto waxa uu sheegay in isbaaro loo dhigtay howshii aqalka sare yaa u dhigtay. madaxweyne Farmaajo waxa uu mahad celinayaa xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee maanta ansixiyay xeerka matalaadda muxuu ka yiri. waxa uu ku baaqayaa xilligan in Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey ay sacsisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. aynu ku bilaabnay xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay kulankii tobanaad oo qayb ka ah kalfadhiga toddobaad ee golaha shacabka. kulanka maanta waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. xildhibaanada golaha shacabka ansixinta ajendaha kadib waxa uu ka codsaday in muhiim ay tahay in xilligan ay maqaamka caasimadda ugu hiliyaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan gobolkan Banaadir. 146 xildhibaan oo kulanka soo xaadiray ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen in 13 senatar la siiyo gobolka Banaadir. arrintaas marka ay dhacdana waa ay soo dhaweeyeen inta badan xildhibaanadii kulanka maanta joogay. sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka maanta waxaa hortagay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey. gudoomiyaha ayaa si adag uga hadashay arrimaha doorashooyinka waxay meesha ka saartay in doorashada soo socota lagu qabto waqtigeeda waxaana ay xustay in doorashadu ay tahay hal qof iyo hal cod iyadoo xildhibaanada siisay laba nuuc oo doorasho ah midkood inay kala doortaan. nuuca koowaad waxay ku tilmaantay nuuca diiwaangelinta codbixiyaha biometric system oo ku qabsoomi karta 13 bilood oo ka bilaabanaysa bisha soo socota ee July kuna eg Agoosto 2021. nuuca labaad waxa ay ku sheegtay nuuca diiwaangelinta isla maalinta codbixinta someday manual registration oo ay sheegtay inay qaadanayso muddo 9 bilood oo July ka bilaabanayso kuna eg Maarso 2021. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka su'aalo kooban ayaa lagu weydiiyay fadhiga maanta. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa kaga mahad celiyay noocyada ay soo bandhigtay. dhinaca kale haddii aan eegnana xubnaha golaha aqalka sare waxaa hareeyay khilaaf aad u xoogan taas oo sababtay in weli aysan kulmin mid ka mid ah kulamada kalfadhiga toddobaad oo si wada jira kol hore u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii ay isqabsadeen guddoonka labada aqal. iyadoo taa ay jirto maanta mar kale waxaa loo balansanaa inay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyay. senator Iftiin Baasto oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sare ayaa si carale u sheegay in madaxtooyada Soomaaliya xilligan ay jahwareer siyaasadeed gelisay xubnaha golaha aqalka sare taas uu sheegay inay ku dadaalayso muddo badanna waqti ay ku bixinaysay inuusan qabsoomin kulankii maanta ay ka baaqday xubnaha golaha aqalka sare. kama uusan hadlin gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka baaqashada kulankan lamana inuu ka soo qayb gali lahaa iyo in kale. senatarka waxa uu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya xilligan isbaaro cad ay u dhigatay in xubnaha golaha aqalka sare kulamadooda caadiga ah ay qabsadaan. iyadoo ay jirto taa xubnihii golaha shacabkana kulankii tobanaad maanta ay yeesheen weli buuq iyo jahwareer ayaa ka taagan fadhiyada kulamada xubnaha golaha aqalka sare ay ku yeelan lahaayeen Muqdisho. dhinaca kale haddii aan eegnana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa qoraal bogaadin ah soo saaray waxaana uu sheegay uga mahad celiyay guddoonka xildhibaanada golaha shacabka tixgelinta iyo fulinta codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir taas uu ka jeediyay furitaankii kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka. madaxweynaha waxa uu tilmaamay muhiimadda go'aanka taariikhiga ah ee horey loogu diiran karay xilligan inuu ku yimid dadaal wadajir ah oo ay muujinayaan shacabka dowladda Soomaaliyeed maantana ay ka go'an tahay in la sii ambaqaado hannaanka dimuqraadiyadda loo dhan yahay ee dalka. golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka jawaabeen dareenka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan rajada bulshada caasimadda. waxa guul weyn ahayd in Muqdisho ay hesho qondo ku saabsan matalaadda aqalka sare waayo waa caasimadda qaranka waa astaantii dowladnimada waa muraayadii dadka iyo dalka ayaa qoraalka madaxweyne Farmaajo lagu yiri. madaxweynaha sidoo kale waxa uu codsaday in xildhibaanada sharafta leh iyo gudiyada dib u eegista dastuurka inay ka shaqeeyaan sidii maqaamka caasimadda u noqon lahayd mid cad oo inta lagu guda jiro muddo xileedka golayaasha sharci dejinta loo soo saaro. sidoo kale madaxweyne Maxamed
ayaa adkeeyey matalaadda siyaasadeed ee gobolka banaadir uu ku yeelanaya aqalka sare oo maanta ay ansixiyeen golaha shacabka ee noqoto mid adkeysa dowladnimada iyo taabagalka iyo dib u dhiska dalka. haddii aan eegnana siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yarey inta aysan qallaaso gelin dalka ay iscasisho. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay khudbaddii maanta guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliim yarey ka horjeedisay baarlamaanka, cabdiraxmaan waxa uu sheegay inay hore u ogaayeen hadalka maanta ay sheegtay xaliim yarey oo ah muddo kororsi sidii uu hadalka u dhigay. hadda ka hor ayaa hogaamiye reer falastiin ah waxaa la weydiiyey khudbadda George Bush ee uu Falastiin Israel uga hadlay ma dhageysatay. waxa uu ku jawaabay maya, sababtoo ah iyadoo afka yuhuuddu ku bixisay ayaa Netanyahu toddobaad ka hor ka dhageystay. innaguna waxaan leenahay khudbadda guddiga doorashooyinka ay muddo kordhin ku soo idlaanayso horey ayaan u ogeyn, ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. siyaasigan mayalka adag mar haddii mas-uuliyadda loo igmaday ay ka soo bixi waayeen, hal waddo ayaa u bannaan ayuu yidhi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, taasoo ah in dalka aysan qalalaase aysan gelin. waxaana uu sheegay in guddoomiyaha ugu horeyn iyadu ay iscasisho. hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay xaliim yarey ku dhawaaqday in dalka doorasho ugu qaban karaan 9 ilaa muddo 13 bilood ah, taas oo ku xiran hadba nuuca doorasho ee la isku raaco, iyadoo soo bandhigtay 2 nuuc oo doorasho ah. gudoomiye xaliim yarey waxay caddeysay in doorashada habka diiwaangelinta ay ka dhici karto ama ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahooda laga bilaabo bisha Juulaay 2020 ilaa bisha Agoosto 2021. waxa ay sheegtay nuuca diiwaangelinta aysan ku qabsoomi karin bisha November ee sanadkan oo ah xilliga baarlamaanka waqtigiisa uu ku dhamaanayo. sidoo kale waxay xustay in doorashada ka dhacaysa hab diiwaangelinta ay ku dhici karto oo kaliya ilaa bisha Agoosto 2021. waxay kaloo xustay nuuca gacan diiwaangelinta ay ku qabsoomi karto oo kaliya bisha March sanadka 2021. ugu dambeyntiina ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo 8 sano ka hor dil ka geystay Muqdisho. sida uu sheegay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, askariga la qabtay ee uu talisku boolisku sheegay 8 sano ka hor 2 ruux oo haween ah waxa uu ku dilay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. taliska booliska ayaa sheegay in dilka uu geystay askarigan uu yimid kadib markii askariga uu haweenka weydiistay lacag yar balse ay diideen, taasna ay keentay in dilkaas uu geysto taariikhdu markay ahayd 3 May 2012. taliska ayaa sheegay in askarigan uu ku jiro gacanta laamaha amniga isla markaasna dhowaan uu wajihi doono cadaaladda si loogu abaalmariyo dilkii uu la kacay u geystay haweenka shacabka ahaa. qabashada askarigan ayaa imaanaysa xilli aysan cadaaladda marin askar ka tirsan ciidamada dowladda oo maalmihii u dambeeyay dilal u geystay dad shacab oo ku sugnaa caasimadda. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkan waxaanu ka codsanaynaa in subscribe saarto. mahadsanidin. ilaahay baa mahad iska leh. waxaan maanta shirkan jiraad u qabanay waxay tahay saakay waxaan lahaynay kulan golaha aqalka sare uu lahaa oo ahaa ansixinta qofkii guddiga ka mid ahaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka xubintii ka dhinayd in la dhammaystiro. kulankii saakay markaan nimid adigu kooramku wax yar baa dhinaaday. aqalku waxaa saakay isbaaro cad u dhigtay madaxtooyada villa Soomaaliya ayaa isbaaro u dhigatay sanataradii ku sugnaa magaalada inaysan imaanin ilaa xal oo dhan bay ka shaqeynayeen. waxaana sabab u ah aqalkii wuxuu yeeshay gafuurkii madaxtooyada. taas marka waxaan ku sababaynaynaa arrinta aqalka ka socota baryahan waa arrin siyaasadeed oo ka socota xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isaga ayaan ku eedeynaynaa xafiiskiisa laga abaabulayaa in aqalka sare lagu dumiyo. kii golaha shacabka ayaa hore loogu soo dumiyay sida aad ogtihiin gudoomiye Jawaari lagu soo dilay. haddana wax kasta oo dalka shuruucda dalka in lagu maran habaabi la rabo qodobka 47 in loo isticmaalo la rabo sharciga dal lagu maamulaahay rabitaan shakhsiyeed dal lagu maamulo. waxaan leenahay mudana madaxweyne ka fiirso waxa aad ku dhaqmayso sharciga dalka inaad ku dumiso aad rabto dal hoggaansan dadkiisa iswata ayaa lagu dhiibay 2016 doorashada 2017 maantana rati daba go'an baa wata hoggaan faaruqana laga dhaxli doona isha muuqata. waxaan leenahay mudana madaxweyne ka fiirso asbaabaha dalka aad ku wado dalku waa burburin haysaa dib u dhac baad ku ridi haysaa maadaama aad ku fashilantay hoggaankii dalka. waxaan leenahay wax iskula har
berri taariikhda ayaa ku qari doonta dalkana meel xun ayaad ugu tegi rabtaa annaguna insha allahu tacaala aqalkan wuxuu noqon doonaa aqalkii dadka iyo dalka badbaadin lahaa haddii ilaahay idmo intaasaan kusoo gabagabaynayaa سعيد هوين والو باين سعيد دون شاور